marka waa taas oo arkaa aniga inkastoo aan arkin wax qof wadaniga maanta oo Soomaaliya maanta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo wadaniyada heerka ay kala taagan yihiin adiga ra'yigaaga way kala fogyihiin marka waa fiiriyo dhalinyarada maanta joogta iyo dhalinyarada hore taariikhdaas ku arkaan buugta akrino midna marka taariikh dalka Soomaaliya soo qaadanayo waxa ku calaalinaynaa 13 Soomaaliya xornimo siisay oo macnaha oo erku aswaal aan soo qaadan karaa 13 ahayn oo dhalinyaro oo ayaga u waray inta kalena way ku raaceen marka waxaan dhigi karaa kala fogyihiin maanta aad iyo aad marka waa fiiriyo dhalinyaradeena hore iyo kuwa caalamka maanta aad u kala fog waral magacaaga iyo meesha degantahay adigoo ku bilaabaya waa kuma wadani adiga ra'yigaaga magacaygu waa Farxiin Maxamed Cawaale degan xaafadda Karyako ee Nairobi aniga ra'yi ahaantayda hadii aan ka hadlo wadani waa qofka jecel wadankiisa oo u horan naf iyo maal isla markaasna juhud badan ku bixiyo sida wadankiisa horumar u gaari lahaay kana hor yimaado wax allaala iyo wixii wadankiisa burbur ku keeni kara wadani dadkaas ayaa ku tilmaami karaa sida taariikh ahaan hadii soo qaato sida Cabdirashiid Cali Sharmaake camal madaxweyne Soomaaliya soo maray hadda ka hor aadan cadde sidoo kale dhanka dadku u soo halgamay in Soomaaliya xornimo hesho ay gumeysiga la soo diray Sayid Cabdulla Xasan ayaa dhihi karaa dhanka gabdhaha Xaawo Taako dadkaas oo kale ayaa dhihi karaa aniga waa wadaan adigoo ra'yigaaga soo koobaya maanta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo wadaniyada heerka ay kala taagan yihiin aniga ra'yi ahaantayda mar ku tilmaami karo waa wadaniyeen dhalinyarada Soomaaliyeed aniga aan ku jiro sababtoo ah anaga waxaan la soo koobsanay inta badan sanadkeena aad u yar ama qaarba ee sadhalan wadankiyo burbura dawlad la'aan ayaa la soo kulanay marka wadaninimada inta badan hadii maanta dhalinyarada Soomaaliyeed wax ka fahmi lahaayeen in badan ayaa la arki lahaa iyagoo ka qayb qaadanaya oo ka muuqanayo nabad ku soo dabaalida wadanka marka dhalinyarada kale inay wadani inay sahan ma ku tilmaami karo waalidiinta ku tilmaamaya laftigooda oo dhalinyarada ma ku barbaarin wadan jacayl waxa kale ku tilmaamaa sidoo kale macallimiinta iskoolka u dhigayay oo dhalinyaradii barbaarinayay wax maskaxdooda because dadkan xaashi camal waay markay soo kurayaan dhalinyarada waa in lagu barbaariyaa wadankiina saan waay taariikh saan u ahaan jiray wadaninimo waxay tahay marka waalidiintii dadka macallimiintii professorada Soomaaliyeed dhalinyarada dhamaantood ma dhigi karo maanta waa dad wadaniyaal aad baa u mahadsan tahay bismillah waxaan deganahay magacayga waa Jaamac Maxamed Cabdi waxaan deganahay xaafadda Isliya magaalada Nairobi waxaan wadani arkaa hadaa soo koobo waa ninkii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa daacadnimo ugu shaqeeya ee dadkii soo doortay asoo xaq alle u fiirinaya ninkaas ayaan ku tilmaami karaa wadani haddana sida naga muuqata dalkeena wax wadani ama saas ugu shaqeynaya ama daacad u ah ma jiro wax wadani oo hadda aan ku tilmaami karo aragnayna ma jiro laakiin sida aan taariikhaha ku hayno iskoolada taariikhaha Soomaaliya aan ku soo wada hayno wadani waa dadkii hore oo u dhibanayay naftooda u horeeyay dalkooda Soomaaliya adigoo soo koobaya dhalinyarada Soomaaliyeed iyo wadaniyada heer intee laagay kala joogan maanta aniga waxaan qabaa inay dhalinyarada aad ugu dhowdahay heerka nabadda ayagaan u dhow waayo hadda waxaan xasuusanaa nabadii dalka Soomaaliya hore Israel baa soo dhaliyay taas ay dhalinyarada ay ka tixraacayaan anigu waxaan u arkaa dhalinyarada inay hayaan fikradihii laakiin loo leeyahay jaanis kaas oo ay ka waaleen maskaxda dad madaxa waxay ku shubteen laakiin dhalinyaradii wax walba oo anaga aan ka midnahay wax walba reed weeyna laakiin fursad baa loo leeyahay waa hagaag daawadayaal aad bay u mahadsan yihiin dabcan dhalinyaradaasi sida quruxda badan ay fikirkooda aan ugu soo gudbinayeen sida ay u arkaan wadanigu qofka uu yahay ama uu noqon karo iyo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo maanta wadaniyadu heerkii kala taagan tahay dabcan waxaan filayaa calina arintaas aad ayuu ugu dheeraaday markii hore oo waxaad moodaa dhalinyarada markii ay hadlayeen Ifraax waxa u badneed intooda badan inay ambaarin dusha uga tuurayaan dhalinyarada waxaan filayaa dabcan hal wiil inuu ku jiray oo yiri dhalinyaradu waa wadaniyiin laakiin wadaniyadii waa laga hortaagan yahay dabcan taasna mar dhaweytaad ka dhawaajisay waxa tiri duqeyda waa wadaniyadu ay ka socon laadahay marka adiga laftirkaaga hadaan su'aashaas ku weydiiyo waa kuma wadani ka dooran karaysa qofkee weey kullu waxaan dhigi karaa wadani waa qofka diintiisa ku adag ee aan maxaan dhahay dhaqan kale raacin wadankiisana jecel rajeeyana inuu wadankiisa iyo nabada ku noqdo dhibaatada wadankiisa ka socotana inuu dadkooda la qaybsado daneeyo markasta
laakiin aan dhaqan kale jeclayn kaas aan wadani u aqaan waa aad baa u mahadsan tahay cali haya kolley dhalinyarada laftirkaagu fikirkooda waa dhagta waa kaaga soo dhacay dabcan qaabkay ay u hadlayeen haya marka adiga waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka dhalinyarada iyo wadaniyadu heerka kala maraysa kolley waad noo sheegtay bal adigoo soo koobaya waa kuma wadani adigu adoo ra'yigaaga cabiraya wadani sidaadaba qofkeed u taqaana adigu wadani horta waa ninka maskaxdiisa iyo muruqiisa iyo maalkiisa intaba wadankiisa muquuno u siiya muquuno waa lagala soo noqonayn oo ma garanaysaa dee in wadankiisa dhib iyo dheefba waxa wadanka ka taag intuu iska tago meelaha intuu kasoo hadlay waxa weeye xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda markaas wadanka ka jirta ninka la qaybsama mujtamaca sidii afraaxba ka dhawaajisay ee aan wadankiisa haddii dhibaato ka jirto iyo haddii colaadi ka jirto iyo haddii abaari ka jirto intaba aan ka qaxin oo ka tahriibin laakiin siduu u xalili lahaa ee ma garanaysaa barnaamijka usoo afjari lahaa haddii colaadi jirto iyo haddii abaari jirtona dadka wuxuu la doojin lahaa oo ninkaasunbaa wadani la yidhaahdaa la fahamtay waana ninka mar kasta ka fikra horumarka wadankiisa hadday environmentiga iyo tahay wax walba uu kala waya wadankiisa mudnaanta koowaad siiya wadankiisa prioritiga siiya moogtahay laakiin lama oran karo waa wadani nin ma garanaysaa qolada madowga ahbaa waxaa moogtahay qofka madowga ah ee cadaanka jecel bay buskulyar bay ku naanaysaan hoosta cadaanka ka jiro oo magac bal hadda uga maqay moogtahay marka haddaad waxaan ku yiri afkana moogtahay qowlkaaga iyo ficilkaaga wayna wada socdaan haddii aad tiraahdo wadani baan ahay asaadan ficiladeeda iyo dhaqankeeda aan la iman haddaad markii colaad talaha dhiman aad cararto haddii markii waxaan ku yiri baahi timaado aad talaha gaajoon ka cararto waa inaad dhib iyo dheefba wadankaaga aad iyo dadkaaga aad la joogtaa moogtahay waa ninka haddaad xataa wax soo barato waa inaad waxbarashada aad meesha aad wax ka baratay iminka mujtamac kasta oo horumar gaadha xataa markii jarmalka la isku darayo dhalinyara ololeysay mujtamac kasta oo caalamka horumar gaadha dhalinyaruba ololeynaysa iminka kasoo qaad ninkii ugu horeeyey ee jabaan ahay gaadh sameeya jarmalku ka tegi jarmalka ayuu ka tegi markaas dhaqankoodii muu qaadan laakiin caqligoodii buu qaatay iyo techniciankoodii iyo qaabkay wax u farsameynayeen xaggaasuu tegey dhaqankiisa jarmalka isagaan wadan laakiin xirfadoodii wata dhalinyarada waxaan leeyahay dabadaha jirta ha noo imanina idinkoo kuula xidhan oo dhagu idin daloolaan oo qaab daran oo ma garanaysaa aad ka naxayso aanu labisnayn waxa weeye waxbarashadii iyo caqligii iyo cilmigii meesha kasoo kala waxaa jira qaar la yado dhaqan aan dhoofin baa la moogtahay waxay ku daydeen nima wuxuu samargiska iyo leel bageela loo saddex maray waxay ku daydeen dadkii xaggaa ka yimi qaar baad arkaysaa surwaalka kasii dhacaya qaar baad arkaysaa madaxa jeel marsaray waxaasoo dhan xaggaasunbay westernkumayna ka yimaadeen marka inta badanna dhalinyarada waxaan leeyahay inay wanaagga iskaga daydaan iyo dhaqanka wanaagsan iyo wadaniyadda iyo wadan jacaylka iyo waxqabadka iyo waxbarashada qof kastaana marka uu caqli leeyahay axadkii kaslaanaysa bool abidkii weeyaan markuu leeyahay xaaja aadan qofku hadduu bilaa caqli yahaa aanu tashanayno noloshiisa aanu horumarba inuu difloma ku sameeyo iyo tadawur ku sameeyo aanu ka fikerayn weligii saboolkaasunbu ahaanaya waxaa loo doonayo wadanka inay wadaniyadiisa muujiyaan oo ay u fikiraan oo ay ma garanaysaa wadanka u taliyaan oo u tashadaan oo caqli fiyow iyo calool furan isugu yimaadaan oo qabyaalad iyo waxaan kuli xaqdi iyo buqud iska saaraan oo waxaan kuli gacmaha isqabsadaan dhalinyarada ayaa loo baahan sabab xataa marka wiilaha la yalaabaa looda la maala marka wadaniyo timaado ayaa horumarna imanaya aad baa u mahadsan tahay waxaad moodaa barnaamijka gabagabadiisii inaynu marayno ifrax haddii aan ku siiyo runtii taxa badan baad inoo tirisay oo kolley aan u malaynayo in dadku kolley sida anigu aan u dareemay ay u dareemi doonaan qofkii wadaniyada ay ku jirto dabcan marka maadaama gabagabadii barnaamijka aan marayno aan ku siiyo maanta halabuurkaagii ugu dambeeyey maxaad marka jeceshahay inaad kusoo gabagabayso qeybtii maanta barnaamijka aad ku lahayd waxaan kusoo gabagabeynayaa soomaaliya idil haddii uu ka jiro khilaaf haye nood soomaaliyo idil haddii uu ka jiro khilaaf asuu qarankeeni dumayon qaxoontinahay qurbaha wada tubanahoo aan tagaagsanahay qaradii soomaaliyeed uu ka jiro khilaaf qoysqoys isu laynayaan dhigna aysan qabin
qalbi wayna wadayihiinan damiir lahayn oqoon wax taraya afrikanku uusan qabin ameerika yurub rafaadkan ku qanacsayin xaggaynu qabanaa soomaaliyu qayshanaa qadiro adigana uunta jidwacana mari soomaalidan wada qaribane qabiilka baas qalbigu kaga dhegaya uurkoodu boogayay ada dawayn karaya ee caafimaadu keen sifahan ku riyooday rabbigan hanoo saxee soomaaliyo israacdayo aan la kala sasaban oo saaxalkii naga baxo aysan sigasha jirin oo sayma roobnoo curteen laysu faraxsan yahay kuwii dhibka siyaadin jiray samatalisiin oo seerooyinkay kala xidheen laysu wada furfuray oo silicina soo marayna laga samatabacay saldaanadoo nuurayso aynu dowladnahay ayaahan soo saara kaceesa dirnoo rume aamiin insha allah daawadayaal ifraax aada ayay ugu mahadsan tahay tixdaas amaba dhowrka tixood ee buraanburka iyo hal abuurka isugu jira ee ay kusoo bandhigaysay dareenkeeda wadaniyadda iyo kaalinta dumarka oo horseedka nabadda ahaa intooda badani ay kaga qayb qaataan marka laga hadlayo ereyga wadani cali ismaaciil haddaan kelmadda ugu dambeysa ku siiya adiga maxaad dhalinyarada soomaaliyeed maadaama barnaamijkeenu uu yahay dhalinyarada iyo wadaniyadda maxaad kula dardaarmaysaa ood halkan uga gudbinaysaa waxaan leeyahay dhaqaajiya dhiigga dhalinyarada dhaqan xumada dhulkeena kasoo dhiciya ifrax maadaama tixdii ugu dambeysay aad ku soo afmeertay haye aan ku siiya halkaaga ugu dambeeya dhalinyarada soomaaliyeed haddaad wax fariina u diraysid dhalinyarada soomaaliyeed ee walaalahaya meel kastay adduunka ka joogaan waxaan ka codsanayaa inay wadankooda usoo laabtaan dowladoodana taageeraan iskana daayaan maxaan dhahaye waxaan kale ay ku dhaqmaayaan waxaan kale ku codsanayaa kuwa kale dowladda kasoo horjeeda inay iska raacaan dowladda shacabkana ay xansuuqayaan janno kuma gelayaan ee cadaaban bay ku mudanayaan intaasan ku codsanayaa waa hagaag daawadayaal barnaamijkii dhalinyarada ee toddobaadkaana intaas ayaan ku daynayaa barnaamijkan oo ay igala qayb galeen cali ismaaciil cali iidle iyo ifraax cali boobe aad ayaan labadoodana mar kale ugu mahad celinaynaa aniyo idinkuna waxaan idin leeyahay isma dhaafno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu